السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخضرة فوتشر سومالي هيلث ايد waxaan rabaa maanta inaan inii faa'iideeyo walaalahayow dhammaantiin meel kasta aad joogtaan youtube-kayga waa khadra foojar Somali Health Aid waaye waa youtube u taagan caafimaadka maaragtay sheeg quruxda maaragtay sheeg healthiga waxa afka qalaad lagu dhaho dhammaantiin waan islaamaya meel kasta ku sugantiin ummadda islaamka ummadda Soomaaliya walaalayaal YouTube kay wuxuu taagan number 1 Somali number 2 caafimaadkaaga iyo kaygaba laabtii sheekana ku dhifto walaalayaal maanta waxaan inahay maadaama bishii Ramadaan oo khayrka badnayd oo barakada badnayd inuu soo aadan tahay ayaa waxaan rabaa maanta inaan inii faa'iideeyo kalena faa'iideysano marka la inaan inii faa'iideeyo waxa weyn barayaa bacda iftaha ama marka la afuro ama marka la suxuranayo ama marka inta afurtid cunto saliid la aad cuntid in wax ka dajinayo caafimaad ah waxaan ka balan qaadayaa insha Allah inaad mar dambe ka caban doonin lafa ku xanuuna luga ku xanuunaya jirkayga infection baa ku jira habeenkii ma seexdo stress baa haya waa daalanahay soonku intaasba insha Allah inaad ka kaaftoontid in the meantime qofka bini aadanka oo Ilaahay abuurtay haddii aadan naftaada adigu la dadaalin walaal dhakhtar iyo isbitaal iyo baxafa midna kula dadaali karto Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba awood iska leh dhakhtarka waa u baahanahay in qofku isbaaro cudurradu qabo ogaado laakiin in the meantime qofka waana ku soo celinaya video-ga horena waa ku daray waxaan arkay dad badan oo dhalinyaro yaangala Soomaaliya oo cudurro badan sida blood pressure maxaa la dhahaa diabetes waa sokorta afka qalaad inta Soomaaliya joogto afka qalaad garanaynin maxaa la dhahaa ii sheeg stroke heart attack so many disease oo aanu garanaynin marka waxa la rabaa qofka bini aadanka inuu asagu isla dadaalo marka waxa ay barayaa walaalayaal waxaad ku faa'iidi doontaan oo very simple marka aad afurtid oo salaadahaagi tukatid cunto culus adigaan cunin walaalayaal waxaan ku barayaa sidii naftaada cuntada maaragtay culus calooshaada uga degi lahayd digestive maaragtay problemkaaga ama caloosha ku taagan oo adag ay khafiif ku noqon lahayd oo musqusha u galaa oo quruxda qof healthy u noqon jirkaagana Ramadaanka Ilaahay jirka noogu dhaqaya inaa ku nadiifisid ay tahay instead markaasna waa qurux banaanaysaa xataa jirkaagu dhalaalaya oo iftiimaya because dhiigaaga nadiif noqonaya maxay tahay maanta koorsadeenu Somali Health Aid khadra foojar aan ku soo bandhigayo walaashayda Soomaaliyeed ama walaalkayga Soomaaliyeed ama walaalkayga muslimkaayo waxay inii sheegayaa awalan Ilaahay subhanahu wa ta'ala cabsidiisa baa inii faraya midda labaad ha isxastinina xaasidnimada ka fogow caloosha qof walaalkaayo wax ugu qaban waxaad biisi ku noqotaa noloshaada adduunka iyo midaada aakhiro waligaana ha aaminin qof inuu wax kaa qaadi karo Allah baa wax kaa qaadi kara waligaana ha aaminin qofka kale wuxuu haysta inaa adiga helisid ku dhibaataysid waligaa qalbigaaga ha gelin haddii lagaa qurux badan yahay maasha Allah dhe haddii lagaa xoolo badan yahay maasha Allah dhe haddii lagaa awlaad badan yahay maasha Allah hadda Ilaahayba ku siina maasha Allah dhe because wax kasta Ilaahay riisan buu uga jeetaa walaalayaal marka maanta koorsadeena waxay tahay shaqaan cararaya waxay baa haysta waxay nii sheegayaa maasha Allah 17 bari baa soomana afurka markaan cuno intaan ban cabbi jiray bacda afur intaan ban cabbi waxaan kaloo insha Allah soo raacin doonaa video-ga afurka intaan cuntada la cunin wixii la cuni lahaa walaalayaal meeshaan waxaan ku hayaa kaamirada aan ugu soo dhaweynaya saa u fahantaan waa xabba sawdadeena iyo shiidan waa xulbad afka Soomaaliga saa u taqaan ama vinegar ama maxay tahay black maaragtay sid timirig oo huruudi geedkan oo maruukadan wuxuu ka baxaa I think Africa uu ka baxaa fiitamiino badan baa ku jira instead wajigana waa imarsa intaba wajiga waa marsadaa marka intaana waa intaas Allahu musta'aan halkan waxa igu jarjaran green abulka greenka dadka Africa jooga hadayna heli karin wax kale ku fruit kale waxa ku darsan karaan maxaa la dhahaa banana waxa ku darsan karaan maxaa la dhahaa batiiq halkaana sanjabiil baa igu jarjaran saa u taqaanaan halkaana waa intaas oo yar oo toona maxay tahay marka sanjabiishu dhiigaaga xirxiran bay furfuraysaa
abulka wuxuu ku siinayaa keliyuhu nadiif yahay greenka buu nadiifinayaa dawo u yahay allahumma sa'ana toontana sida nabigeena sallallahu alayhi wasallam inoogu sheegay dawo aan la ogeyn baa ku jirta saa ila socda meelaha dukaamada kale waxaad ka heli kartaa manuuka waxaad ka heli kartaa dukaamada Holland Ambar wax badan ma isticmaalisid awalan bismillah mishinka waxaan ku shubaynaa abulkii iyo sanjabiishi haddii sanjabiishu ku dhibto wax yar baa ku darsan kartaa oo aan micno lahayn baa ku darsan kartaa okay aniga already waa soo qiyaastay qaadadaydi baan ku soo cabirtay soo marka xabasowda wax ku darsanaysid caafimaad ahaan walaal macaan intaasaa ku darsaa marka waxaa shiidaysa ku daraysid waayo waa intaasaa ku daraysaa waa qaadada yar haafkeeda kana already aniga waa ii wada cabirnaayo manuukadii waa ku wada darsanaya huruudda already qaadayda iyo way cabirnay xulbada also way cabirnay daaseed intaasaa isku dareen waxaa suubinay haddaa haysatid malab yar hadda aniga oo kale malabkaas yar baa ku darsaa haddaa macaan rabtid waayo qofka macaanka rab hal qaado malab ku darsanayaa laakiin bismillah uma baahan doontaa laakiin malabku iska fiican yahay caloosha dawowgiya okay intaa markaas ku shiidatid qof kasta oo Soomaaliya ama Muslim isticmaala ama yuskarey please waxaan ka codsanaa describe me waxa ka faa'iiday ana isku soo duceyno calooshaadu ma noqon doonto calool heefiya ma noqon doonto calool markasta culays ka diranta ama digestive problem ka haysatid midda labaad dhiikarka sokorta blood pressure kada inii sheegaya xulbada waa anti diabetic qofka xabasowdada xataa waa anti diabetic waxa lagu dhahaa diabetiga qofka regular xabasowdada isticmaala blood pressure diabetiga maxaa la dhahaa laf xanuunka nervous system hadaa neerfa la cadiman tahay waxayna bari doonaa sida gaarka xabasowdada iyadoo kaligeeda xataa loo isticmaalo marka treatment nerve problem haysatid xulbaduna sidaan ognahay dhacaanka jirkeena ku wada jira meelaha jooyinka dadka waliba maaragtay lafaha problemka sida arthritis-ka ama af Soomaaliga waxa dhigi jirnay I think inay Talyaani ahayd rheumatism ama riix ama laf xanuun habasa u taqaan af Soomaaliga marka walaalayaal lugahan ka kici waayay naaqul waxa ka ama nin walba qofka Soomaaliga markuu gaaro 30 iyo 40 sano wuxuu ku leeyahay I have got this I have marked vitamin D also vitamin D gaaga loo hadiyo please xulbada habeen kasta hal qaad koob caana ku caan wallahi you will see different wax badan baan iska arki doontaa وانا ما عرفت كبودين انت also skin ka qurxisaa timahay bixisaa urkeeda iyo shirkeeda doo qofka ashiira waa qof aan qubaysan isna diifin marka walaalayaal la socdo say noqotaa inta tusay sheegaya ama secret baa isha wax sira ay sheegaya alaabta marka odaga siisan odagu ma daalayo ma dabeecad xumaanayo ni wanaagsan oo macaan buu noqonayaa because waxa keenta ama gabadha hadda abay isticmaashid qofka waxa keena markuu daalan yahay problem haysto always stress yahay nolosha ma xamili karo qofka la nool xataa hadalkiisu u dhibaya marka waxa ay sheegaya ilaahi subhanahu wa ta'ala horta qaatumada hayna guduwo اللهم صل على محمد نبينا صلى الله عليه وسلم ان alaabtan habeenkii bacda afur markaad afurtaan oo cuntada maar salaadihiina tukataan baad isku qabanaysan waxaad kala suubin kartaa markaad suxuuranaysa hadaad suxuurka la rabo intaan baad cabbi kartaa banaanaad ku darsan kartaa hadaa adiga macaan rabtid waxaad ku darsan kartaa iyo kale moor hani baa ku darsan kartaa ama malab badan walaalayaal wallahi caafimaadku ilaahi ka sakow gacantaada ku jira qofku haduu isla dadaalo ilaahi subhanahu wa ta'ala awala ilaahi rumaysanta inuu asagu ku abuurtay ku khalqay asagu wuxuu kuugu talagalay aad noqonaysid waxa waaye waxaad ogaataana hafi abasiye maanta waxa inii sheegay wax tiriga Soomaaliyeed waligiin sheekh dhakhtar jiifa inta ma sha Allah tabaaraka macrifta inta ugu badan miyaad aragteen waxay isticmaalaan waxyaalaha naturalka sida xabasowdada sida kalaamka ilaahay quraanka ay akhriyaan
ما فهمتay sadaqaday bixiyaan marka ilmaada reyaal gabar iyo wiilo alaabtaas kareed badan oo aad ka sheekayn doontaan baa ku jirta istixmaala ma sha Allah haddana bakeerigan ku shubaya waad arki doontaan hadda cabaan digtid waxa isla noqonayaan maxaa la dhahaa xabasowdadu way furtaa wax furta isla noqonayaan marka bismillah ana test garan bismillah inaba caadi ma haddaad jeclayn ama if you don't like the tastiga gingerka ama sanjabiisha tastiga jeclayn waxaa ku dari kartaa wax yar walaalayaal macana isku faa'iideyna ku faa'iido wallahi wax badan baa ka fahmisaan waa very nice waa dawa xag rabbaaniya waa nafaqo waa nutrition qofkana waxaa loo baahan yahay please balance maxaa la dhahaa cuntooyinkaaga sambuuska iyo waxa saliidda lagu shiilay iska yareeya waxyaalaha annaga neutralka u leeno inoo baxa dadka Soomaaliya jooga ama Afrika war cambuulooyinka habaysta saliidii sokorta iska daayo cambuulooyinka qudradda ilaahay inisi wadankeena ka baxa YouTube-ka ka daawada saa u karsada walaalayaal marka waa ku faa'iido doontaan insha Allah isoo duceeya isku soo duceeyna dambigan Allah inuu dhaafiyo kii waalidka Soomaali weyn waa in jeclahay ilaahay in jeclaada amni iyo nabad iyo khayr iyo stability ilaahay in siiyo dalkeena oo nuura oo calanka buluuga dunida ugu dheer yahay yaa ugu dheer yahay insha Allah rajaynaya sanadkiisa kale walaalayaal oo bilaahu tawfiiq waxaan leeyahay noolaada guul gobonnimo Allahumma salli ala Muhammad ba ku soo gabagabay waana mahadsantii